السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري كسو دوادا وحرنا مانتا كليبكينا إنان كسو قادنو وحنا ognahay هاي سيديدي بيشان مانتا بيشان مريسا جنوري طبانكا سيديدي إن لو دبالدقو doorashadii siciidani ama Puntland ay u dabaaldegay doorashooyinkooda haddaba siciidani wuxuu ku soo galay wiiraan 6 tiir iyo waxbuu sheegay haddaba maxaa ka qabsooma waxyaaluhu sheegayo dhan wax ka suurta galeen ma jireen hasaad maxay maaragtaa ku soo kordhiyay garowe iyo Puntland muxuu ku soo kordhiyay maxaa qasaaraha uu maaragtaa u geystay haddaba aan ka bilaabno waxyaalaha uu faa'iidada uu ku soo kordhiyay dhigi karno xogaa waxba saddex degmo qardhiyo ufeyn maaragtaa degmooyinka noocaas ah in maaragtaa uu ka qabtay oo kale maaragtaa wax doorashooyin qof iyo cod ah oo qab dimuqraadiya ku dhacay inkastoo ayada naftirkeeda uu ka carooday sababtayna ayada naftirkeeda in gudoomiye ku-xigeenkiiba ay maalin maaragtaa saacado u dhaxeeya inay iska wada casilaan ayagoo ku eedeynaya ama gudoomiyuhu ku eedeeyaba inuu ka shaqeyn waayay madaxweynaha maruu tilmaamayo ka hadlay wuxuu yiri gudoomiyuhu waxa weeyaan guddiga doorashooyinka ee maaragtaa Puntland ama degmooyinka soo qabtayba wuxuu ku eedeeyay madaxweynaha maalin la fariistay dabcan maalintaana wuxuu yiri buu yiri madaxweynuhu waa eedeeyay oo dhexdhexaad iyo waxba ma tiin ayuu nagu tilmaamay buu yiri wax kaliya oo maaragtaa xogaa loo diiwaan gelin karo waa xiriir dimuqraadiyada oo soo iftintay hase ahaatee de maaragtaa intii ugu dambeysay de maaragtaa nin 99 Soomaaliya de maalintii boqolaad de maaragtaa afuray ama 30kii Soomaaliya 9 maalintii 30aad uu ku dari lahaa de yiri kuma dari karo ayuu noqday dani oo ah saddexdii degmo markuu arkay in maaragtaa lagu jabiyay oo ku jabay de maaragtaa ay sameeyeen coalition ay sameysteen xisbiyadii kale ay iskaashi maaragtaa si ay gudoomiye ay u qaataan ayuu maaragtaa arkay in marka halkaasna dabarjab kale oo siyaasadeed uu ka soo wajahayo saas ayuuna maaragtaa uu kala dhantaalay asagoo markii hore de waxa wanaagsan qabta asaga dib de maaragtaa ka dhiiqiyay maaragtaa markii aadaan dhankaas waxaan dhigi karnaa waa inta yareed uu qabtay asahaatee haddaan tilmaanno maxuu maaragtaa Puntland u dhimay oo kale markaan soo qaadanno tiro laguma gaaro oo de xisaab maaragtaa kuma dhamayn karno maanta iyo berriba haddaan tirino asahaatee markaan ku soo bilaabno tusaale ahaan shilinkii Soomaaliga kunka shilin awalba ka noolaa oo lacagii 10 ahaa ee ka badanaa ay Soomaaliya ay lahayd shilin ilaa ay kunka shilin awalba kunka shilin noolaana halkaas ayuu ku dhintay waxa kale oo maaragtaa Puntland inkastoo ay qayb kamid ah markii runta laga hadlo de qayb kamid ah uu dhaxlay haddana de wax siyaasada uu ka keeni waayay siyaasad dhaqaale oo fadhisa ee maaragtaa wasaaradda maaliyadda way keeni weysay waxa kale uu leeyahay wasiirro de maaragtaa haduu la kuuran yahay shaqadooda shaqo ka dheeraad qabta sida maaragtaa wasiirka maaliyadda oo shaqo walba oo wasaaradeed qabta oo aan maaragtaa u kala socnayn oo u malayso maaragtaa qaab madaxweyne camal uu maamulo asagoo waxaad arkaysaa wasiirka amniga daba taagan asagoo wasiirkii haduu la kuuran yahay dhismayaasha iyo biyaha daba taagan meel walba asagoo ka warramay aad arkaysaa meesha asaga loo diray maaliyad iyo systemkii loo diro ah inuu maaragtaa wuxuun maaragtaa siyaasad maaliyadeed la yimaado ay fariisisa maaragtaa waxaas sidaas la mid ah waxyaaluhu soo kordhiyay waxa ka mid ahayd oo de u diiwaan gashay sicir barar maaragtaa xad dhaaf oo dadkii masaakiinta ahayd oo de maaragtaa wax mahaysatada alyoomka maalintii ku xisaabtami jiray inay maaragtaa haduu alla ku roon yahay waxa soo galayahay ay waxba u goyn waayay ama maaragtaa wajin Soomaaliga oo dhacay haddana sicir barar de wax walba la iibin waayay kiilada bariiska maaragtaa haduu alla ku roon iyadoo dollar ay marayso $2 iyadoo iidaankiiba la gaarinba waxyaalaha uu soo kordhiyay waxa ka mid ah de waxaan ognahay bishii December in maaragtaa dagaalo lagu hoobtay oo de maaragtaa aad iyo aad maaragtaa haduu alla ku roon yahay nasiib darro u ahay in uu ka oogay meesha la yiraahdo magaalada Boosaaso oo ah xarunta isha dhaqaalaha ee maaragtaa Puntland ay ku tashato de maaragtaa mar walbaba ay ku faani jirtay ama gobolada kale ugu horumarsaneed ayadii ayuu yiri maaragtaa si maaragtaa maadaama waxaan qabiilo ay iska yihiin maamuladan la sheegayo de magacaas kale dawladda uu ka yihiin ayuu haddana wuxuu sameeyay haduu la koran yahay Maxamuud Diyaano ayuu yiri maaragtaa hogaamiyaha maaragtaa BSF ciidanka loo yaqaano oo Mareykanku tababaray in maaragtaa inuu bedelo isku dayay waxaas xusid mudan ciidanka BSF loo yaqaano in ciidan loogu talagalay aysan ahayn maaragtaa maamul goboleed ama dawlad goboleed ay tahay ciidan maaragtaa loogu talagalay ama xukunkooda ama maaragtaa haduu la koran yahay amar qaadashadu ay tahay dawladda dhexe ee maaragtaa fadhigooda xamar ay tahay
sidaas la mid ah dagaaladaas waa lagu hoobtay waxaan ognahay dagaalo maaragtay in dad badan dadkii qaxay intii ugu badnayd dad badan ay ku dhinteen dad badan ku dhaawamay ciidankii maaragtay awalba hal meel ku sii wada jeeyo cadow quraga lahaa inay isku soo jeesteen oo nin adeerkii halkaa isku baabiiyeen cadowtooyo fara badan ay dhacday wuxuu markuu arkay in lagu jabay hadduu markii dambe lagu soo baxo lagu soo baxo maaragtay hadduu alla ku roon yahay kaalayana dhexdhexaadiya haddaba maaragtaa inkastoo markii dambe uu qor dhiibtay haddana maaragtaa maaragta waa laga baaqsan karay inay maaragtaa intaas oo nafa halkaa lagu waayo ummadda Soomaaliyeed ku weysa mareer Puntland ay ku waayaan sidaas la mid ah dhaqaalihii uu meesha isku burburo dadkii qaxaan dadkii dhaawacmaan ganacsigu istaago waxa badan ay baaba'aan oo halis badan loo qarka loo saarmay maaragtaa meeshaas inay baabaado sidaas la mid ah waxyaalaha loo diiwaan geliyay oo asagu maaragtaa maaragta inkastoo asagu iska nin tookhaya uu yahay haddana waxyaalaha reality-ga oo underground-ga loogu tegi karo garowoo kale waxaa arkaysaa hadduu alla ku roon yahay in lagu kala qaxayo kale oo maaragta hadduu alla ku roon yahay maaragta dagaalana ay ka dhaceen magaalada banaankeeda saxmeegaag meesha leeyahay gobolka Sool dagaaladaas ayaa saameeyay dad deganaa oo meelaha deganaa oo qabiiladan loo yaqaan dhulbahantahoo kale in maaragta magaaladii lagu waarsaday ama si xun loogu dhaqday ay magaaladii ka guureen ayagoo waliba maaragta qoysas fara badan inay qabteen ee u dhigteen meesha la yiraahdo magaalada Laascaanood ee maaragta xarunta gobolka Sool iyagoo markii horeba maaragta waxaan lagu neenaasaa dadka halkaa ka yimid jaaliyad timid oo kale jaaliyad timid waxaase la sheegaa maaragta hadduu alla ku roon yahay in halkaa ay ka jirto dawlad hoose ama ay caasimo tahay oo loo siman yahay waxaase xaqiiqa maaragta golaha deegaanka ee garowga ka dhisan oo kale haba gudoomiye gobolka degmada ha ahaado nin dhumaantaha oo iska maqaar saara hase ahaatee xubnaha ugu badan maaragta xubnahaas meeshaas markii laga soo reebo dhumaantaha meesha gudoomiyaha ka ah hal xubin degmo ayuu ka deegaanka xubnahooda ama baarlamaanka deegaanka ee garowga waxay leeyihiin hal xubin oo dhumaanta ku leeyahay sidoo kale leelkasa oo kale xubin buu ka leeyahay warsangel waa xubin nimanka loo yahay Carab Saalax waa xubin intii kala aaway sagaal ayaa leeyahay reer maaragta reeraha kale ama Ciise Maxamed kuwa kale meel loo siman yahay haday tahay maamuladaas ayaa la simi lahaa inkastoo iska maqaar saar yahay ninka maaragta magaalada maaragta madaxda ka maaragta gudduqa magaalada dadkii waa qaxeen waxyaalaha loo diiwaan geliyay in dadka in lagu kala sheegtay oo goboladii la kala sheegtay waa sababta maaragta Sheekh Meegaag meesha la leeyahay iyo sanjibiye iyo area-daas oo wax dagaalada ka dhacay waxaan rajaynaynaa insha Allah in Ilaahay kala qaboojiyo ummadaas walaalaha muslimiinta siciidan waxyaalaha ku faanayo waa inta inuu maaragta sicir bararkan inuu lacagta shilin Soomaaliga siyaasadu ku nooleeyo waayay oo keeni waayay inuu maaragta hadduu alla ku roon yahay sidaas la mid ah maaragta hadduu alla ku roon yahay oo keeni waayay siyaasad amni siyaasad dadka ku noolaan karaan dagaaladaas uu dhijiyay asagoo waliba soo hanqalteegayo maaragta ummadda Soomaaliyeed inuu hogaamiyo asagoo qabiilkiisa kaliya hogaamin waayay asxaabay mar kale waxaan ka codsanaynaa inaad nagu soo biirtaan siina share gareysaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh